munaasabada soo qaban qaabiyeen maamulka dugsiga sare ee degmada Garadag ee Secretary School ayaa waxay ka qabsoontay hoolka dugsiga. munaasabadan ujeedkeedu ahaa sidii wax looga qaban lahaa baahiyaadka aasaasiga ah ee ka taagan dugsiga sare ee degmada Garadag, iyadoo roobkii guga ay waxyeello u geysteen dugsiga sare isla markaana baabiyeen qaar ka mid ah galaasyada iyo deerka dugsiga. munaasabadaas oo ka soo qayb galeen waayeel waxgarad, waalidiinta, ardayda, maamulka dowladda hoose ka waxbarashada degmada Garadag, qaar ka mid ah qurbo-joogga ka soo jeeda degmada Garadag. aqoon-yahan ayaa lagu lafaguray sidii wax looga qaban lahaa baahiyaadka ka taagan dugsiga sare ee degmada Garadag, iyadoo ugu horreynba munaasabada ay ka hadleen maamulaha waxbarashada dugsiga sare ee degmada Garadag Sara Jaac Diiriye, isla markaana soo bandhigay baahiyaadka aasaasiga ah ee ka taagan dugsiga sare ee degmada Garadag. maamulahaan waxaan halkan ku soo bandhigaynaa shirkan oo ku saabsan soo bandhigida duruufaha ka jira ama ku xeeran iskuulka dugsiga sare Garadag. duruufahaas oo isugu jira duruufo culus iyo kuwa fududba. kuwa hore loo ilaamiyey oo xatii hore ugu jira miidiyaha iyo codsi ilaa heer wasaaradeed, iyo kuwa ku saabsan isku tashi wixii aanu ka qaban karno bulsho ahaan aanu ka qabsan karno. sidoo kale iyaguna halkaa waxaa ka hadlay guddoonka waxbarashada ee degmada Garadag, xubno ka mid ah cuqaasha, waayeelka iyo waxgaradka, iyadoo intii ay sitay munaasabadaas sidoo kale ay ka hadleen geella xayd oo ka mid ah qurbo-joogga ka soo jeeda degmada Garadag, isla markaana fariin u diray qurbo-joogga sheegana duruufaha ku gadaaman dugsiga sare ee Secretary School ee degmada Garadag. iyagoo dhammaanba mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabada ay hadalladooda ka mid ahaayeen sida tan. wanaag anigu qurbaha ka yimid 20 sano ka hor waxaan xasuustaa jaamacadda camuudinka haysta ayaa loogu yimid Norway. wuxuu noo sheegay Somaliland marka laga yimaado Boorame in meesha labaad xagga waxbarashada ay tahay Garadag. wallahi waxay 20 years ka hor ahayd. maanta markaan ima xasuusin secondary Garadag la sheegay soo ay marka soo galtay baan u dhaxay dema waa la dadaalay oo de ma sha Allah waa fiican tahay ba, laakiin de dayacba ka muuqda. anu waxaan oran lahaa heer Garadag oo de hadda marwalba qura qayliseen waa dawladda la hadasheen oo marka inagu aan isu tashano oo inkastoo abaar lagu dhaceeyo dadka caydoobe. Garadag iskuulku waa secondary de waxay la tahay waa halkii ugu dambeysay Maxamed Xilbiiri, anna waa ku raacsan waa halkii loogu dambeysay. baahida laga hadlayaa horta maanta waa taa iskuul annagu dugsigaas sare weeyaan. annagu markaan reer Garadag nahay dad baanu ahayn marka hore wax xoolo ku noola oo isagu xusbara oo isagu soo saara wadanku aan iskuulaba ka jirin baa reerkii inaan waxba ka soo noqon baaqi la diray. maanta lafteeda ee kama maarno dawladda iyo hay'adaha midna kama maarno. baahi weyn baa la sheegayaa. baahida weyna qaar wax laga qaban karo hadii la isxil qaban way ku jiraan, qaar waxba laga qaban karna way ku jiraan. iskuulkani dawuu dumay, dhismihiisi caadiga ah ee deerarkiisa way dumeen. waa baahi weyn. dadka reer Garadag walba way iska jeeb xumaa. xilligii roobku waa bilaamaya agabkii iskuulka lahaa adeebteedka leeyahay ardadii meesha wax ku dhigaysay intii oo aragta. waxaan la hadlaynaa waa wasaaradda waxbarashada heer gobol ilaa heer qaran oo ugu sareeyo wasiirka waxbarashada iyo saynisku. waxaan leenahay mudanayaa qodob kale oo ah sharaa'iga degmada ka shaqaysta ee ay ka mid yihiin shirkadda Telesom, shirkadda Dahabsiil. waxaanu aad ugu dhaliilaynaa inay ka gaabiyeen baahiyihii xaq loogu lahaa ee dadku xaq ugu lahaayeen oo ay madar sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag.